marka halka 10 nuqdo aan sheegay waxa soo raacaya 11 ilaahay wuxuu waajibinayaa dawaaqidka in la diriro muslimiintu dhanbu kicinaya yaa ayuha alladina aamanu walli qaatilu walli faqatilu a'immat al-kufri hogaamiyaasha gaalada la dagaalamo marka ilaahay leeyahay oo muslimiintu dhan kicinayo soo kaba arkaysid caamo in la dagaalamayo caamo la dagaalamaya maxaa yeelay a'immat al-kufri waxa ay ma ka dhigay caami leeyihiin way sida waa ninkan marka leeyahay waa boqor waxa laga wadaa caamu leeyahay laga wadaa ciidan buu leeyahay tol buu leeyahay sida ka amar qaadanaya marka hadii lagu yiraahdo boqorada la dagaalama macnaheedu waa maxay boqorada iyo wixii jiidaya la dagaalamo way saasa islaamku marka isku qabtay caamada marka hore laga reebi lahaa hadii waxa la dagaalamay caamadu dambi la'aan waxa la dhihi lahaa nimanka aymada ah soo xirxira laba kaligood markaas soo xirxira nimankan dadka dhahaya balaayo u ishtoonaya ka qabta xirxira la dhihi lahaa hadda lama dhihi karo xirxira maxaa yeelay isma dhiibin iyagu xoog bay leeyihiin aday rabaan inay ku baadiyaan waa quwa waaxida way oo mutanaasira ah oo qoom iyaga isagii qoomkiisa israacsan taas waxay keenaysaa muslimiinta oo dhan in la dagaal geliyo la yiraahdo qaatilu a'immatul kufri in la yiraahdo aimada gaalada la dagaalama in la yiraahdo oo kufriga wada iyaga iyo askartooda iyo waxa ay wataan la dagaalama meesha imaanaysa caamada markii lama bariyeelin markii horeysa waxa la yiri dagaal baa lagu wajahayba maxaa yeelay daawud bay raaceen kufar bay ahaayeen ilaahay wuxuu yiri walawla daf'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'd la fasadat al-ardu arda fasadin haybali dadka ilaahay in isku garaacayo ilaahay waa ogyahay maxaa a'immatul kufrina dad bay wataan a'immatul islaamna dad bay wataan dadkaas la isku dhufanaya ilaahay waa ugu talagalay hadda tiraahdo caamu weligeed waa bari sida reer galbeed ka dilayeen diinta ilaahay ka hor imaanaysa maxaa yeelay waxa ay diintu ku sawiraysaa ra'sul qoom baa loo bixiyay madax ninka waa madaxii inta iyaguna waa xubniin kale hal jisad baa laga dhigay ka shakhsi waahid baa loo dhaqmayaa saasa diinta ilaahay loogu talagalay